maqnaa xiriir aan naga dhexayn jiray sidii xiriirka nooga dhexeeyey waxaa kaloo lahaa gabar saaxiib ila ah صح gabadhaas marka aniga waa soo dhaweystay gabar gobolka imaaday ahayd isku duruufeysan si walaaltinimo ku jirto amicnaa usoo dhaweystay gurigeygan keenay waxay ku dhahday abaayo meelaan ku noolaada ma haysto aniga saasa ahay gabadhii waa soo dhaweystay gurigeygan keenay walaashii camalaan ka dhigtay واقرت saaxiibay ii noqota marka صح wiilkan xiriira igala dhexeeyo xiriir jecel صح maalin maalmaha kamid waxaa dhacday aniga wiilkii inaa iskhilaafno xoogaa isku dhacno labada qofood markay xiriir leeyihiinna dagaalkooda wuu iska badan yahay kadib waxaa dhacay aniga wiilkii xoogaa iskhilaafnay ayadina guriga igula noosho saaxiibadee ahayd waxay dhahday adi iyo wiilka waxaa rabaa inaa micnaha idin heshiisiiyo صح maadaama dagaal idinku dhexeeyo marka labadooda waa isbartay oo inay saaxiibtaa tahay asaga uu ogaa asaga wuu ogaa inay gabadha saaxiibada tahay ayadana way ogtahay inuu wiilkan xiriir igala dhexeeyo okay marka labadii adii wiilkii maadaama isdagaasheen oo xoogaa wax idin soo dhexgalay ayada meesha soo dhexgaysaan hadda ka fahansan aniga wiilkii isku dhacna ayada way ogeed ilaa guriga iskula noolnahay waxay ku dhahday marka aniga waxaa rabaa ay dhahday inaa wiilka idin heshiisiiyo ifroy okay waayaan ku dhahay waa ka caga jiiday dadka madaxa adagaa ahay waa ka caga jiiday ugu dambeys waa ka heelay okay gabadha wiilka lambarkiisa sidee ku heshay maalintaas wixii ka dambeeyey ayada heshiis ma raadinaynin waxay raadinaysa wiilkaasay ku qaadan lahayd lambarkiisa okay maadaama markii ay ayadii la fadhiso oo wiilkaas isoo waco ani isbiikar keliya u furi jiray bartaasay kala hadli jirtay maalin alla maalintaas dagaalna ay tiri waa ni heshiisiinayaan wiilka lambarkiisa saasay ku heshay okay adi waad aaminto yani inay labadiina gartiina ay gasho xoogaa inkastoo waan ku madaxaday markii dambe waa ogolaatay haa markii dambe waa ogolaaday maadaama ay saaxiibada aheedoo saaxiibisa kay dhigaysa laakiin cadow ay ugu aheyd ani aan ogeyn okay khiyaanaday kugu samaysay maxay tahay marka cadowtinimadaas khiyaanadu waxay ahayd wiilkaas maalinta in heshiisiis wixii ka dambeeyey labadooda xiriir ay sameeyeen way ii tashteen xiriir ay sameeyeen ani maan ogeyn wiilku adiga macnaha xiriirka jacaylku idinka dhexeeya asaga saaxiibtaas uu jacayl looga aqbalay walaahi nimankaa waa iska danac badan yihiin sax ani laakiin uma malaynaynin gabadhan markii ay wiilkan ay heshiisiinaysaba meesha qorshe ka wadataa anina maa ogey lafadaba lilaahina meel islama galaan okay ayada may kuu sheegtay yani in yani saaxiibkaada ay xiriir la samaynayso maya ma is ii sheegin haddayba ii sheegaysa sama u dhici lahaanbo okay marka xaggee ku dambeysay marka sheekadooda sheekada waxay ku dambeysay waxayna ku bilaabanaysaa gabadhaas iyo wiilkaas maalintaas waxay ka dambeeyey xiriir ay sameeyeen anina waa ila nooleed gabadha muddo badan aan ila nooleed sariirteeda ugu kacay waxyaabo badan u sameeyey walaasheeyaa ka dhigtay xitaa ereyga saaxiib waa kala xishoon jiray maadaama qof aan soo dhaweystay ahayd gurigaas macnaa igula noolaan jirtay sax gabadhii ada waxaa dhacday muddo markaa haayay wiilka xiriir hoos ka sameey animaan ogeyn gabadhii wejiga ii bedeltay waxay ugu dhahday abaayo mudda isoo heysay cabbaaraan kula noolaa waana mahadsan tahay waxaan rabaa ina abtigay hadda u wareegsado abtigay ugu dhahay anoo xamar joogo